waxaa dhici doona 6 kulan oo Premier League ayaa dhici doona kaasoo oo aad iyo aad muhiim u yahay oo waxaan la soconaa haddii Arsenal ay guuleysato inay Premier League ay si dheeraysa doonto taasoo 10 dhibic u jirsa doonto kooxda City. saddexda galabnimo waxaa wada ciyaari doona Burnley iyo Bournemouth ayaa wada ciyaari doona, Sunderland iyo Brightonna way wada ciyaari doonaan, 5 iyo barkana Everton iyo waxaa wada ciyaari doona iyo Arsenal. waxaa kaloo wada ciyaari doona Newcastle iyo Chelsea way ciyaari doonaan. 8 habeenimana West Ham waxay martigeli doontaa kooxda City ayay martigeli doontaa. waxaan rabaa inaan kor istaagno kooxda Everton iyo Arsenal iyo West Ham iyo kooxdan City iyo laftigooda Newcastle iyo Chelsea oo waxaan la soconaa Newcastle in ciyaartii Champions League barbar dhac la geliyay, ciyaartii ugu dambeysay Premier League-na gurigooda inay Everton 3 iyo uga soo adkaatay iyo 2 oo saacadii ugu dambeeyay in goolkii guusha Everton ee meeshaas ay ku soo qaadatay iyo laftigooda kooxda Everton oo u tagaysa kooxda Arsenal oo u tagaysa iyo Newcastle oo dib ugu soo noqday ciyaaryahankoodii Guimaraes oo dhexda uga dheelaayo oo Brazilianka ahay. marka waa ciyaar aad iyo aad meeshaasna xiiso weyn u leh. Chelsea laftigeedana 5 iyo 2 ayaa waxaa uga soo adkaatay kooxdii PSG ee Champions League oo guuldaro meeshaas kula soo dhacday. haddii aan u leexdo kooxda Everton iyo Arsenal oo ciyaar aad iyo aad muhiim u ah waxaan la soconaa David Moyes iyo Arteta inay ahaayeen wiil iyo macalinkiisa xilligii uu joogay David Moyes kooxda Everton inta uusan imaanin uusan soo aadin kooxdii Manchester United oo soo aadin inay xaggaas aysan joogeen ay birina ay wada kulmi doonaan labadooda. waxaan la soconaa labadan koox inay yihiin labada koox ee ugu fiican markii la dhaho awayga ama kooxaha banaanka markay u soo baxaan in Arsenal 29 dhibic ay banaanka keensatay meesha ay Everton ay taa kooxda labaad oo ku xigto oo 24 dhibic ay ka keensatay. runtii waana koox aad iyo aad runtii ugu fiican xagga weerar celinta, ciyaaryahanna aad iyo aad u fiicanna runtii ay haystaan aan la soconno oo difaacooda O'Brien iyo Tokarski iyo Brandwaite oo Ingiriiska iyo ciyaaryahanka Makalechenko oo Ukraine-ka goolhayoodan runtii nin aad u xun ma aha oo Pickford ayaa u jooga waxaynu ku ciyaaraan kooxdan weerar celin ayay ku ciyaaraan oo waxaan la soconaa Beto oo aad iyo aad u dheereeyay inuu joogo India laftigiisa oo gees ka dheelo inuu yahay ciyaaryahanada ugu fiican Premier League ee geesaha ka dheela inuu ka mid yahay. kooxdan Everton waxaan la soconaa inay aad iyo aad isu difaacaan, xarqin zeytoon korkooda ay saftaan kadibna ay weerar celin ay meeshaas uga qaadaan oo 4-2 ay ku ciyaaraan oo weerar celinta ay aad iyo aad ugu fiican. laakiin Arsenal runtii ma aha koox weerar celinta inta badan lagu gaadi karo oo waxaan la soconaa difaacooda inuu aad iyo aad ugu fiican yahay, aysan ahayn koox inta badan weerarka soo gasha ama soo aado. Everton waxaan fili doonaa inay difaacada geli doonto, laakiin haddii qaybaha hore gool laga dhaliyo waxay u badnaa doontaa in loo zaa'idiya ayaan u malay doonaa. laakiin waxaan qabaa Everton in ay xataa ay ka soo adkaatay ayaan la soconaa banaanka ugu tagtay kooxdii Manchester United ayagoo ciyaartooy laga saaray inay guul ay meeshaas ka keeneen oo waxaan la soconaa geeha in laga saaray calaamadda guduuda laga siiyay markii asigii saaxiibkiis ay isku dagaaleen garoonka dhexdiisa. Everton wax walba ayaa laga fili karaa, laakiin ani waxaan isleeyahay waa ciyaar ay Arsenal ay soo guuleysan karto. inkastoo Everton aan la dheelsan karin, Arsenal ayaan u malay doonaa inay meeshaas ay guul ka keeni doonto, 10 dhibicna ay si dheeraad doonto. 8 habeenimana waxaa wada ciyaar doona kooxda West Ham iyo City ayaa wada ciyaar doona oo waxaan la soconaa West Ham in ay rabto inay soo badiso si ay uga soo baxdo 3 ugu dambeeya 5 kulan ugu dambeysana West Ham lagama adkaan oo West Ham runtii waa koox laftigooda difaac aad iyo aad u gasho, xarqin 8 korkooda safato, weerar celinna ku ciyaarto. runtii ciyaaryahan aad u fiican oo Summerfield oo aad u dheereeyana way haystaan. waa ciyaartii ugu dambeysay ay guuleysteen, waa ciyaaryahanka goolka u dhaliyay oo ayagana waxay ku xisaabtami doonaan weerar celinta. Cityna waa la soconaa inay isku dayi doonaan inay weerar isdaba jooga ay soo qaadaan oo ciyaartii ugu dambeysay oo Champions League waatuu Pep Guardiola asigoo garoonka Bernabeu oo Real Madrid joogo inuu 5 ciyaartooy oo weerar oo keen. marka West Ham waxaan fili doonaa inuu 5 ciyaartooy oo weerar oo keeni doona ayaan fili doonaa oo weerar waxa kaliya oo wax uga qaadi kara inay weerarta. City runtii waxaan qabaa
inay sidii hore ay kasoo qabsatay ay aad iyo aad ay u fiiceen. inkastoo Real Madrid ay 3 ku dhifatay, haddana koox liidata maysan ahayn. koox inta badan kubadaha haysato oo weerar ku socota ayaad, inkastoo fursado aysan samayn ay gool ay ku dhali karaan, haddana kubadda ayaga ay haysto oo Real Madrid waxay u ekaad koox banaanka ku dheelayso kale markii la fiiriyo ciyaartaas labadooda dhex martay. West Ham iyo markaan usoo noqdana City, waxaan fili doonaa inta badan kubadaha City inay hayso doonto. Cityna way la socotaa haddii ciyaartan barbardhac ay gasho ama laga adkaado Arsenal meeshaas koobkaas ay si toos ugu dabaal degi doonto. 21 bishana waa la soconaa inay wada ciyaari doonaan Carabao Cup-ka finalka inay wada ciyaari doonaan. marka waxaan fili doonaa ciyaartan 8 habeenimo dhici doonto inay tahay koox City ay guuleysanayso. laakiin su-aasha meesha taagan waxay tahay yuu ciyaarsii doonaa, oo waxaan la soconaa ciyaaryahanna aad u fara badan inuu haysto oo Phil Foden in uusan in muddo uusan ciyaarsin oo ciyaartii xataa Real Madrid in kaydka uu fadhiyay oo aan la keenin. ma keeni doonaa ciyaaryahankaas mase weli kaydka ayuu ku hay doonaa. oo Phil Foden waxaan la soconaa siday u yimideen Samey iyo Shirki in uu kaydka marmarka dambeyso uu sii galaya. haddana waxaaba kusii yimid Savinio ayaa soo noqday oo geeska dheelaya, oo waxaa u malaysaa in meeshaasna culays xoog leh oo kasoo fuulay. marka Pep Guardiola ma ciyaarsii doonaa Phil Foden mase weli kaydka ayuu ku hay doonaa. Arsenal laftigeeda waxaan la soconaa Bukayo Saka sidii hore inuusan ahayn oo ciyaartii Champions League Leverkusen in la bedelay. markii la bedelana la keenay Mudawekina inuu ahay ciyaaryahanka goolkulaadka ama rigoorada ay dhaliyeen ay meeshaas oo keenay. inkastoo UEFA ay meeshaas cudurdaar ay ka siisay kooxda Leverkusen aysan ahayn goolkulaad, hase yeeshee goolkulaad qalada meeshaas Arsenal lagu siiyey loona cudurdaaray kooxdii Leverkusen. si kastaba haatee waxaan qabaa Mudaweki marmarka dambeyso inuu soo xoogeysanayo oo soo fiicnaanayo. ciyaaryahanka Bukayo Sakana sidii sanadka hore inuusan ahayn oo dhaawacyadiisa inay badan tahay, ciyaartoydii uu mari jiray iyo sidii wax samay jireen inayna jirin. marka ani waxaan qabaa Mudaweki in lagu bilaabo ayaan qabaa. inkastoo Bukayo Saka uu ka farsan badan yahay, haddana Mudaweki markii la siiyo difaaca ayuu la aadaa. wuxuu isku dayaa xarqin 18 inuu soo galo ama kubad oo ku soo rido. marka maxaa u malay doontaa Bukayo Saka iyo Mudaweki yuu ciyaarsii doonaa tababaraha Arteta? Mudaweki muu la ciyaarsii doonaa mase Bukayo Saka? Bukayo Saka se goosmadiisii oo dadku u gogoy jiray miyaa la fahmay mase waa daalaya mase dhaawac ayuu qabaa? adigu sidee ay kula tahay? oo waxaan la soconaa Bukayo Saka hore inuusan ahayn oo xoogay dib u dhac inuu ku dhacay. ma dhaawac ayuu qabaa? ma daal ayaa haysto mase ciyaartoyda difaaca ayaa shaxdiisa fahmay oo mari jiray? marka bal adigana fikradaada nala wadaag. 6 ciyaar oo Premier League oo dhacayso Sabtida.